سلطان محمد أحمد وسلطان كجود بلها رشيق موسى كوميشنر محمد صوفي يوليبا عقال يا قويهان كتر سنبيش عسي ومقالة بربرة ساكا شركة كو قبتي أيا سي أدق ولها لي اللي برخط بطون أي كو إيديين xilligan inuu bilaabay inuu kala qaybiyo dadka beelahaasi ka tirsan iyo dadka kale ee ay deegaanka wada degan yihiin reer saaxil waxaanay sidoo kale ku eedeeyeen inuu qayb ka yahay burburka uu doonayo iyo waliba shaqaalaha ka shaqeeya qaybta nadaafadda ee dekedda weyn ee magaalada Berbera inuu xilligan kala qaybin iyo waliba inuu xilligan dhibaato u geysto waxaanay sheegeen in iyagu in badan ka howlgaleen sidii shaqaalahaasi cabashada ay qabaan ay u dhameyn lahaayeen iyagu oo halkaasi ka sheegay inay wax badan ka qabteen waxa uu harsanna ay diyaar u yihiin laakiin barkhad batuun waxa ay ku eedeeyeen in aanu isagu waxba ka qaban hawlaha deegaanka magaalada Hargeysa oo ay sheegeen dadka shaqada nadaafadda ka shaqeeya in qandaraasyo lagu qaatay oo ay dad kale u shaqeeyaan iyaga oo aan iyaguna wax xuquuq ah iyo wali aan ka helin shirkadahaasi ay u shaqeeyaan haddaba Suldaan Maxamed Axmed oo hadalka iba furay waxa kamid ah hadaladiisii sida tan balbal wax kale lagu qaaday ka weynti in loo soo dhex maro deegaankayagii oo inamadii raynta la tuciyo abaab lagu sameeyo oo reer balbal fidmal laga dhaxabuurana waxa la wax barkado kugu jira ma jiraan meeshana 13 shirkadood oo muduqmaalka kontraada ku haysta ka jira anagu barkadkeenii si dagaal cad baan naga dhaxeeyay laakiin sida Ilaahay baa siiyay inamadeeda sida Maxamed ba sheegay barkadkeenii soo fadhiisayna halkan anagu waxaan wadano ayuu ba ka shaqeynaya beesheeda waxaan anagu raali ka nahay uu ba ka shaqeynaya adigana barkado damidow dagaalkii ugu horeeyay dagaalku soo qaada weeye oo reeb badan ku kala qaybin dad ku argoosanayso waxaad diqlaa in Ilaahay guushu ku siiyay oo dhamaaday Allah ay wax reeb balbalaad ku kala qaali karaysa oo reeb balbalaad ku argoosanaysa kaaga socon maayaan ku foof daamidaad kala qaybsay afeeraha u kala qaybsay anagu hadaan reeb balbalaad nahay hawleenay كوا برختيني سنا أنا سوادينوا كوا أنا سوادينوا أنا كودا أنا قاله يبقى أبوك خير دامي قد الناس والله استحشيشكي ضاد هوسة لمن بقى قاته أبوط يقول يقول كذا واحد كمان قبته بل قد الناس لا يسلياس الوريتشي الحبشة كان ستة أبوك القلب سكتاي بورت واحد ما كان صور ما يسوي وهي أهلنا السجون ما نو أرجوس كذا الوضلع حس بيجاك وحبك تلبس حبك كسيريشة حس بيجا لما تذكر تلبس ألا ودي كمان نحمين وحن سوق بجبينية والقصور الأحمر يا ونوقي عندك قصور الأحمر إزاي ستة المايو ولعاق وصو إن رمضان أنا قال المسؤول كان يجيب البرنة أنا أقول بهرور يقول شذا يمكن يقول دولينه barkadkeenii sina waxa ugu baaqaya inay soo fadhiisato dabcan commissioner Maxamed Suufi ayaa isaguna taariikh dheer ka sheekiyay inuu muddo badan ka shaqeynayay sidii dadka cabashadooda loo dhameyn lahaa waxaanu barkad ku eedeeyay inuu xilligan doonayo dadka deegaankiisa ka tirsan iyo dadka reer saaxil ay wada degan yihiin Berbera inuu kala qaybiyo mushkiladna abuuro waxaan leeyahay xildhibaan barkad waajibkaagii maad garan hadiiba inamada ku soo cawdeen sida mas'uuliyaddu ku faraysa sida odaytinimada ku jirto inaad inta Berbera timaado garab la shirto ma yahayn garabka anagu waan taageersanahay waa walaalahayo waa odayaashayadii qaar ba anaga naga waaweyn waxay ahayd inaad ogaatay inay doorashadii dhamaatay oo idinku waliba guuleysateen reer Berberna ay mid yihiin lana kala qoqobi karin lana kala qaadqaadi karin waxay ahayd inaad tiraahdo muddo dheer oday arrinkan yaa ku soo jiray yaa wax ka qabanayay yaa xogtooda haya ama de waxba ka qaban waayay markaad odayaasha xusto ee odayaasha u timaado aan anigu xitaa xog dheeraada kuugu daro haddii aad diyaar u tahay inaad waraysato
laakiin ana taa diyaar u ahayn odayaashii aad ka dhigtay waxaan jiray caada qaatayaashiina aad ku taageertay kaygan jaraa'id aniga odayaasha uu daaran yahay arrin ku saabsan shaqaale beeshayada ah oo dhalinyaro ah oo cabasho TV-ga mariyay isla markaana shakhsiyaad siyaasiya ama xildhibaan ah ku xusay maanu diidin cabashadooda laakiin waxaan ku yara noqonayaa taariikh shaqaday ka shaqaynayeen iyo shirkadda Barkhad Clearances runtii dekada ka hor intii aan DP World qabsanin waxa maareeya ka ahaa Ali Xorxor iyo اللهم صل على محمد نينك اللي يراهدو سليمان فارح ولبدي كن يسقال بقول سقال شنكي لبدي كن إلا لبدي كن إيو صدح دي ويسكو بدليين يجو وحن الله ونحريستي حال كان كحسيا جامع إبراهيم حاشي بروفيسور كي معلن كها يا إنجنير عول حسن علي ورنتي أنا قول اللي يراها hawsha aan juhdi weyn iyo dagaal weyn ku galnay sidii shaqaalahaas u noqon lahaayeen shaqaale galabayroolka dekada macalaasaf wax ka hortaagnaaba nidaamkii waqtiga jiray waxa uu ku hayay inay gaar ka noqdaan shaqada iyo shaqaalaha dekada caqabado badan kadib anigu dalka waan ka dhoofay dagaalna runtii waan isku jirnay mar walba shirkadda Barkhad Clearances dalka markii aan dib ugu soo noqdayna waxaan soo gaaray shirkadda DP World oo iyadu dalka joogta markaana heshiis la gashay Soomaaliland sida shuruucda caalamigu ay qabaan iyada laftirkeeda waxaan ka galay dagaal dheer dagaalka dheer wuxuu nala galay ilaa inaan la kulano ninka la yiraahdo Subache madaxda ugu sareysa DP World waraaqan u qoray waqtiyada horena waraaqihii aan wada saxiixnay Cawil Xasan iyo Jaamac Ibraahim waan hayaa hadda oo kuwa miiska saaran social media-hana waan la soo wadaagi doonaa waxaan naga go'nayd annaga inaan dadkaygana la ku ag cunin inaan dadkaygana la ku ag calaashan inaan tacaddi lagu samaynin inaan loo arkin inay yihiin dadka ka harsan mar walba waxaan jeclahay inaan dadka soo gaarsiino xaqooda iyo xuquuqdoodana ay helaan DP World waxaan isla galay doodo fara badan ka bacdi waxa noo soo cadaatay in shaqaalaha DP World u shaqeeya ay yihiin shaqaalo iyagu ay ka dhigeen permanent waqtigii DP World ay la galisay Soomaaliland heshiiskana 14 shirkadood oo shirkaddan Barkhad Clearances ku jirto ilaha iyo faracda sida la wada og yahayba ay yihiin shaqaale iyagu ka gaar ah shaqaale weynaha DP World ay siisa xaq iyo xuquuqda taa laftigeeda weeyta aan Subache madaxa isula galay ta qoraalka iyagu ay ku gaareen Dubai waxa hadiya habeen laga go'naa oo aanan cidnaba u joojinaynin inaan dadkayga u shaqeyno oo helaan the same right ay helaan shaqaalaha kale alxamdulilaahi rabbil caalamiin welina waan ku daba jirnaa kamanaan harin marka waxa dhacday maalin dhaweyto inay cabashada muujiyeen shakhsiyaadka siyaasiga aan soo hadal qaadayna ay ku xuseen oo ka mid yahay xildhibaan Barkhad Batuun Barkhad Batuun waxaan leeyahay mala elementary school badhay waqtiga aan xuquuqda dadka ka hadlaynay waxa aad ogsoon tahay gobolka saaxil inuu yahay Soomaaliland gobolka dadkeenu ama dadka iyagu ay ugu shaqaalaha badan yihiin waxaanan feer yalaad ku geynin waxaanan cadkooda u soo ridin ma shaqeeyaan waxa ugu dambeysay tiraba shaqaale gaariya 12 qof oo imika 5 bilood u dambeysay xataa hoteelada private sector-iska ah aan qaarkood geynay si ay u helaan xaq iyo xuquuq waxa kamid ah shirkadaha Sagal Jad iyo Dayax Jad oo aan geynay intaaba waxaan raadinay ninka soo dhalinyaro soo kaca inaan u raadino xaq iyo xuquuq inaan u raadino meel uu ku tiirsanaado hadii kala qofkii adigu kugu soo noqonay kuwan cabanayana kuwaasay noola mid yihiin imikana arrintooda ka seexan mayno si diibliyaan u galaynaa horena waan ugu jirnay
weligayna waan ku soo jirnay muddada dheeran kaaga sheekaynayana waxaan u doodaynay in xaqoodii xuquuqdoodii inay helaan maantana way naga go'antay waxa u dambeeyay oon xasuustaa anagoo barkhad clearances is haysana oo noo soo qaatay dagaal oo uu na soo hujuumay in shaqaalihii qayb ka mid ah oo ragga maanta cabanaya ay ka mid yihiin ay intay shir jaraa'id qabteen suxuladan ka leefna yiraahdeen malab nimcan ku jirna anagii baa isla yaabnayba maxaa doonayseen kuwa san u hadlaya koodu doodaysan miyaan ahayn laba arrin baan ku soo koobaya taariikhaha dheer DP World waxa weeye waa shirkad وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاه بولشة TV مقالة بربراء